agaasimaha guud wasaaradda duulista iyo hawada Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Dalal Farax ayaa maanta si rasmi ah uga warbixiyay mashruuc cusub oo lagu baneynayo madaarka magaalada Burco isla markaasina lagu goynayo dhir fara badan oo xanibaad ku sameysay madaarka magaalada Burco waxaana mashruucan fulinaya ururka wadaniga ah ee Tigaad waxaana maanta kulan ka qabsamay madaarka magaalada Burco ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ururkaasi wasaaradda duulista iyo hawada iyo waxgarad kale oo gobolka Togdheer waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay agaasimaha guud wasaaradda duulista iyo hawada Axmed Dalal Farax oo sheegay in mashruucan yahay mid muhiim ah hawshaas oo ah sidii airportkan ama geedan diyaaradaha oo muddo badanba dhir badani ka baxday khatarna ku ah nabadgelyada iyo safety-ga diyaaradaha ka gooshaya sidii looga jari lahaa asaaska maanta munaasabadani waxa weeye waa mashruuca dhagax dhigiisii oo bilaabmi doona sabtida hadii ilaahay naftayda ugu gaarsiiyo sidoo ogtihiinba airportkan muddaba wuu xidhnaa siyaasadda dawladdan kulmiye uu hogaamiyo mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo waxa ay hormood ka dhigatay inay kor u qaado kobciso kaabayaasha dhaqaalaha airportaduna waxay ka mid yihiin ama madaaradu waxay ka mid yihiin ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha dalka wax ka qabta waa muraayadii dalka laga soo galiyay waa muraayadii dalka wax looga dhoofinaya adduunyada kale gobolkan Togdheerna wuxuu caan ku yahay oo uu wax weyn dalka ku soo taraa geesta kalena waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha ururkan wadaniga ah ee Tigaad Khadar Maxamed kaasi oo sheegay in mashruucani ka hawlgalayaan shaqaale badan oo gobolka Togdheer isu dhan yahay 3 kiiloomitir ama 300 oo mitir 3,000 oo mitir una dhiganta 3 kiiloomitir oo ballaciisuna yahay 645 mitir inta waxaan ka goyn doonaa dhirta ku baxday oo xagga u dambeysay waliba ay aad u dhirta uga baxday taawaan qabanana waxaan kala qabanana inaanu sameeyno mooski ka celinayay runwayga biyaha oo aanu sagana dhisayno 3 kiiloomitir aanu dhisayno labada activity baan qabanana anagoo kaashanayna oo ay mashruucan maalgelisay hay'adda WFP oo runtii aad iyo aad iyagana aan ugu mahadnaqayno hawsha badan ee wasaaraddu aan isla soo marnay ee option soo qabanay ee hard work ay shaqada adag ahayd runtii iyagana waxa ku mahadsan wasaaradda duulista hawada gaar ahaan DG-ga isku soo wada duudubo mashruucan ayaa ka mid ah dib u habeyn ballaaran oo lagu sameeyo madaarka magaalada Burco wa Khalid Bakeyle shabakada Horseed News magaalada Burco.